liibiya waa dal dhaca waqooyiga Afrika. Siyaasad ahaan waxaa iskaga kala dambeeyay gumeysi, boqortooyo iyo Qadaafi oo 1969kii saraakiil oo ka mid ahaa ay afgembiyeen boqor Maxamed Idris. Gumeysigii kadib ilaa haatan laga soo gaaray kacdoonkii Guuga Carabta ee Liibiya waxaa soo maray laba talis oo kala ahaa boqortooyo iyo xukun militari. Taasina ayaa sababtay hay'adaheeda siyaasadeed inay noqdaan kuwo aan qaangaarin, horumar aad u ballaaranna samayn sida dhigooda caalamka. Hogaamiyaha Muammar al-Qadaafi inkastoo uu ka maamul hor dowladeed oo isaga hogaaminayo taladana lahaa, haddana wax walba uu ka ilaaliyay inay dibadda kaga imaado fargelin awoodeed oo saameyn ku yeelan karta hanaanka maamulka gudaha iyo dowladdiisa. Sida awgeedna wax walba isaga ayaa lahaa amarka ku dhiirashada go'aanada adag ee Liibiya ka dhaqan galay muddada xukunka uu joogay. Bulsha ahaan Liibiya waa hanaan qabaa'ili ah si la mid ah Soomaalida. Dhanka dhaqaalaha wixii ka horreeyay 1950kii waxay ku jirtay xaalad saboolnimo oo aad u baahsan. Waxay fursad weyn u noqdeen ceelasha shidaalka oo intiisa dambe ahaa ilaha dhaqaale ee saameynta ku yeelatay nolosha dhaqan-dhaqaale kana dhigta mid ka mid ah dalalka Afrika ugu horreeya. Taasina waxaa ku guuleystay Korneyl Qadaafi inta xafiiska uu joogay. Sida lagu arkay kacdoonkii Guuga Carabta ee ku faafay Liibiya, waxuu meesha ka saaray xukunkii koroneelka kaasoo soo tixnaa 42 sano. Dalbashadii Qadaafi ee Liibiya waxay gashay xaalad qalalaasi tii ugu xumeed taariikhda ee dalkaasi ay soo marta. Liibiya waxaa ku loolamaya xukuumadda sharciga ah ee lagu dhisay heshiiskii Morocco bilowgii Diseembar 2015 iyo daraf kale oo hogaaminayo Xaftar oo taageero maaliyadeed iyo mid ciidan ka haysto wadamada Imaaraadka, Masar, Sacuudiga. Waxaa soo raaca Ruushka, Mareykanka oo muddo uu ku noolaa jiray. Taageerada dibadeed waxaa u suurtagelisay qabsashada dhulka intiisa badan laga soo bilaabo bishii Afraad 2019 ee sanadkii tagay. Waxaa ka go'an inuu caasimadda Liibiya ka faramaroojiyo xukuumadda sharciga ah, taasi oo sahlaysa inuu helo galaangal siyaasadeed oo dibadda ah iyo mid maaliyadeed iyo mid ciidan. Wadamada oo xulafada waqtigan la yahay kuwa qarsoon iyo kuwa muuqda ee dirirta dhinaca ka wada. Waxayse xaaladdu ay sorogtay dhimaadkii November kolkii Turkiga iyo xukuumaddii Saraaji ay kala saxiixdeen iskaashi ciidan iyo xadbadeed ee ka wada samaystaan iyo aag dhaqaale oo u gaara. Ujeedada Turkiga ka leeyahay aaga dhaqaalaha u gaarka ayaa ah mid istiraatiijiyadeed oo la xiriirta gaaska dabiiciga ee bariga dhexe iyo mashruuca dhuumaha badda, waana qorshe gaasta dabiiciga loogu daabulayo Yurub. Midowga Yurub mashruucan waxay ku tilmaameen dan guud, laakiin Turkiga qayb kama aha. Sidaa awgeed maqnaanshihiisa waxa uu arkaa inay hoos u dhigayso awooddiisa saameed ee gobolka iyo ka faa'iidaysiga gaasta dabiiciga ee bariga dhexe. Labadaas darteed ayay Liibiya u noqotay goob dagaal iyo colaad yeelata wejiyo badan oo marba marka ka dambeysa dhan isku soo rogaysa, waana khatar hor leh oo ku sii horeysa shacabweynaha Liibiya iyo khatar ay adag tahay in xal loo helo maadaama wadamada ugu quwadda weyn ee midba mid uu la safan yahay. Xaftar wadamada qaar taageeraya ayaa ku qasbay inuu miiska wadahadalka ku soo laabto, sida Imaaraadka Carabta. Masar waxay ku qasbeen inuu miiska wadahadalka ku noqdo, waxayna u muuqataa isfahanka Turkiga iyo Liibiya inuu dowlad tiray saaxadda loolanka guud ahaaneed iyo faragelinta Turkiga ee dhinaca militariga. Liibiya iyo Turkiga isweydaarsiga heshiiska iskaashiga militariga iyo midda dhaqaalaha midba midka kala dan ayaa ugu jirto. Tan militari Liibiya ayay saameynta ugu wanaagsan ku yeelanaysaa maadaama ay dowladdu loogaga baahan yahay inay dib ugula wareegto gacan ku haynta goobaha muhiimka ah iyo guud ahaan maqnaanshaha gobolada kale, iyo inay dowladdu hanato mar kale Liibiya oo xura, hal calanna leh, dowladna leh. Turkiga waxa uu ka raadinayaa si uu dhaqaale ugaga faa'iido awoodda gobolkana u muujiyo. Afrika awooddiisa ayaa ku cusub tahay Turkiga maadaama dhanka kalena Soomaaliya uu taageero iyo wadamo kale. Siyaasadaha isdiidan ee caalamka ayaa keenaya dal walba ee dowlad la'aani ku dhacdo inay xaalad khatar ay sii gasho, maadaama wadan walba uu raadinayo inuu maslaxadiisa ka dhex arko mid dhaqaale, mid ciidan, mid istiraatiijiyadeed si uu ugu muujiyo awoodda uu ku leeyahay dunida loogana baqo. Inta ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixinta. Anigoo Maxamed Sheekh Cumar ayaa idiin soo jeedinayay, idiin soo diyaariyay. Haddii aad nagu tahay daawada nagu cusub, nagu soo biir fadlan. Haddii aanu nahay bahda bulsha Kaabe Media, tan iyo kulan dambe. Soomaaliye warsan fi amaanillah.